Madrid waa caasimadda iyo magaalada ugu dadka badan Spain. 28 bisha Juun oo berri ku beegan waxaa si rasmi ah uga furmaya shir madaxeedka isbahaysiga gaashaanbuurta difaaca ee NATO. waxaa ka qayb galaya oo tagaya madashaas madaxda dawladaha, kuwa xubnaha ka isbahaysiga, dalalka saaxiibka dawla ah isbahaysiga iyo xubno kale oo lagu casuumay tegitaanka madashatan Madrid u camiran berrito. shirku waxa uu socon doonaa 28 Juun ilaa 30 bisha tan. waxaa lagu gorfayn doonaa xaalado kala duwan oo ay ugu muhiimsan tahay qadiyadaha gobolka, siyaasadaha difaaca, maalgelinta duulaannada iyo tallaabooyinka militari ee haatan soo ifbaxaya. madasha Madrid sanadkan taariikhda markii ugu horreysay hoggaamiye ka socda dalka Japan ayaa ka qayb galaya shir madaxeedka NATO oo ka dhacaya Spain. waa sooyaal ugub ah, waa taariikh lama ilaawaan ah, waa dabaysha diblomaasiyadeed ee isbeddelka gobolka iyo dhaqdhaqaaqa lama horaannimo ee jaangooyinta Japan xaaladaha ku teedsan. dulucda tabinteenna madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka qayb gali doona kulan wadahadal ah oo uu la yeelan doono hogaamiyaasha Sweden iyo Finland iyo sidoo kale NATO maalinta Talaadada ah ka hor shir madaxeedka Madrid, sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada Turkiga Ibrahim Kalin. labadan dal ee ku yaalla waqooyiga qaaradda Yurub waxay dhowaan codsadeen xubinnimada NATO si ay uga jawaabaan duulaanka Ruushka ee Ukraine, balse codsigooda ayaa waxaa ka soo horjeestay Turkiga oo ka carooday wax uu ku sheegay taageerada Helsinki iyo Stockholm ay siiyaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta iyo cunuqabataynta hubka ee saaran Ankara. afhayeenka madaxtooyada Turkiga oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in isaga iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ay sidoo kale ka qayb galeen wareeg wadahadal ah oo ay la yeesheen wafuud ka kala socotay Sweden iyo Finland, kaasi oo ka dhacay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka maanta oo Isniin ahayd. waxaa magaalada Madrid ka dhici doona shir madaxeed 4 geesood ah oo heer hoggaamiye ah kadib codsi ka yimi xogayaha guud ee NATO oo ka soo qayb galayo madaxweynuhu, ayuu ku yiri afhayeenka madaxtooyada ee waddanka Turkiga. Master Kalin ayaa sheegay inay wadahadaladan ay samicnahoodu ahayn in Turkiga dib uga laabanayo mowqifkoodii hore ee diidmada ahaa, laakiin waxa uu sheegay in Turkiga iyo dalalka waqooyiga Yurub ay si weyn isugu afgarteen arrimaha qaarkood ee muhiimka ah.